lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraato tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yare imika aan haysaneen moobeelka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xurulcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaarayaa ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورة أفوفينا با إلهي إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكي كصبح دونان دان حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي حي وما حيب لا يا هرددي نغا سو كعيي وان جيفني وان هردني هردده maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaamada sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي آية الليل آية النهار noloshan adduunyada aan ku noolahay waa maalin iyo habeen maalintiina waad foofaysaa habeenkiina waad nasanaysaa waad seexanaysaa qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan sabixatuha yowma almaxshar waa berigeeguna waa maalinka qiyaamaha weeyaan يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدويدا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يهبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا
habeenkaasuu nebigu noo sheegu yidhi qabrigu waa laba mid weeyaan amaa waa rawda min riyaadi aljanna imaa xufratu min xufari innaar mu'minkiina beerbeeraha jannada ka mida looga dhigayaa gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgododka naarta ka mida looga dhigayaa ninna uu hurdaa oo 70 sane adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeennaa wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamulbarsakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaan ka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qadamat yadaah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma aljamci yowma altagaabun yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yowma altagaabun yowma altaamma yowma asaakha habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka warramaayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin keliya wa fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana yowmaidin tucraduun laa takhfaa minkum khaafiyah yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala yowmkaasina qur-aanka ilaahay noogu sheegay waa 50 kun oo sannadood ibnu cabbaas radia allaahu canhuma mufasirkii qur-aanka wuxuu ku fasiruu yidhi 40 kun oo sano waa la joogi 10 kun oo sanona xisaabtaa ku dhammaani doonta buu yidhi 40 kun oo sano ayaa sidaa loo taagnaan doonaa 10 kun oo sanona xisaabtaa ku dhammaan doonta nin caraabiyo reer baadiya ayaa sara kacoo yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii caraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najownaa warabbi alkacba kacbada rabbigeyga ayaan ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabad gallay buu yidhi markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك مدى مجرو هدو جرى نبو رسول كل أيهي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالنت عد وكل أفعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقات عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي قولي تمر جيح تمر إنك أنا هلين بالنبي يقول لي هذا الكوناكسن هكو هذا كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن
walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu tayyibatu sadaqa buu nebigu yidhi caaisha radiyallahu canha almu'miniin ayaa tidhi markuu nebigu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurla bay tidhi yuu yidhi nebigu sal alla alay slam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tidhi radia allaahu canha almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma nin baa ma gabadh baa ma naag baa maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jira buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa assulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badani waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru beytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati tariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adrii maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laag baa banka qiyaamo looga dhigi buu yidhi inteen tukanay salaadii maqrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eegaa dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eegaa meeshuu marayo aakhiraduu eegayaa meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxay taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradayda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaalo aakhiradayda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaamo looga dhigayaa dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta o dhan kaa joojinaya wanaag o dhanna kuu diraaya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan
إيمان إلهي الرمي آخرنا الرمي إلهي الرمي آخرنا الرمي والله بدأ النبي يدو ضدك يقول يدي نبي كستو أدوك الله كيني ومدى إلهي حقي سوء يدي آخرنا حقي يقول يدي وها إلهي كأقرر لنا قلنا وإيماني عمل صالح وها آخرنا ذكوبة بعد السنة وإيماني عمل صالح maalin maalmaha ka mid a ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا ديجيس قلبك سامين يا وحنا ديجيسنس قلبك سامين يا وحنا تكوه ليس قلبك سامين يا وحنا تكفكر يس قلبك سامين يا وأفرت قصبضات قلبك ابن هذا كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد هذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء قلبك دحل قلك قبيا قرآنك آخر سكي سؤال الله بديو يا آخرته انت بدل لا شك شك الله حسوس الله شكايو labada maanta may nagu yarin mise nagu badan yihiin ya quraanka akhriskiisina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeedina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو واسدا مساجد او كلويان سدا مساجد إلهي اللوغو وينينايو أيا زمن النبي سوقنا إلهي اللوغو وينينايي سدا مسجد كدحديس إلهي اللوغو عاصيين أيا سوقنا إلهي اللوغو دحاسيين إنك نزمن كينا مانتا شيكدي دبادة تالي أيا لغا يابا إن لكينا مسجد كقدوهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كدحديس بايله كيبو هنايا مرقابو النبي يقول إلهي كوما سوء ليبو كيدي هذا أركتان بو النبي يقول إنن مسجد كدحديس بايله يبادي كيبو هنايا وعاتر هذا إلهي كوما سوء ليدا هذا أركتانا نن مسجد كدحديس قناعسي يتجارة كدح سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوما بركة يدا هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي لورد سيبا رسولك يريد نولش مساجد تالا بي علمدو ليهين أيا للربعين دي بدا الله ساري نولش دي بدا تالا مسجد كاين لكينا ماها عهدي نبينا عليه الصلاة والسلام يا عهدي صحابة دادك مسلمين تو نولش مسجد كاي كو هايستان أي دي بدا ولا بحين
halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiina intuu galabu odhan jiray halkayna fadhiisiya ilaahay saacadaha rumayna kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mari iraac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyuu soo baxayeen haddana maalin kale uu yidhi ina mari iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi yaa bnu cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buuhi halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd markaa ibnu cumar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan 100 qof baan u ducaynaynaa 100kaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa 100ka awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo